xaqiiqdii maanta farxad ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo shirweynihii saddexaad. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shirweynaha isku duwidda amniga kaas oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha cadaaladda kaas oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha iyo hay'adaha ka shaqeeya amniga iyo cadaaladda iyo wakiillo ka socda beesha caalamka. Shirkan ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulada dalka ka jira iyadoo inta uu socday lagu falanqayn doono xaaladda amniga ee dalka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay sugidda amniga iyo sidoo kale dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. marti sharafta qiimaha iyo qaayaha badan ee maanta ka soo qayb gashay xafladan soo maamustay oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada. Midowga Musharaxiinta Soomaaliya ayaa isugu yimid wajiga labaad ee shirka musharaxiinta oo lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa marxaladda waddanka iyo maareynta marxaladaha doorashada. Shirka Midowga Musharaxiinta ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo geedi socodka go'aanadii lagu xusay war-saxaafadeed midowgu ku soo saaray shirkii 6 cisho uga socday magaalada Muqdisho. Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa faahfaahiyay qodobada looga hadlay shirka Midowga Musharaxiinta Soomaaliya oo wajigii labaad uga furmay magaalada Muqdisho. Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa faahfaahiyay qodobada looga hadlay shirka Midowga Musharaxiinta Soomaaliya oo wajigii labaad uga furmay magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in shirku uu ku soo booqday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor isla markaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan doorashooyinka iyo doorka Galmudug. Waxa uu tilmaamay in Galmudug ay diyaar u tahay xoojinta geedi socodka Soomaaliya isla markaana ay raadin doonto xal waara.